السلام عليكم دمان صاحبada ku xiran page-ka Manchester United Somali fans iyo bartiisa YouTube-ka Man United Somali waa aniga oo huujiga cadaawe waxa idin soo jeedi doona wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray xidiga reer Faransa ee Raphael Varane halkani waa Man United Somali Real Madrid ayaa xaqiiqsatay in Varane uu soo dhamaaday waayihiisii Santiago Bernabeu oo xidigan ku qaatay muddo 10 sano ah. Wararka ayaa sheegaya inuu ku soo wajahan yahay masraxa riyada ee Old Trafford. Madrid ayaa u soo bandhigtay Varane heshiis kordhin sida ay qortay shabakada goal.com, laakiin xidigan ayaa ka soo jawaabin dalabkaas. Arrinkan ayaa cadeynaya inuu ku sii jeedo albaabka laga baxo ee Santiago Bernabeu. Madrid ayaa dadaalo badan ku bixisay inay sii heesato xidigan sanado kale maadaama kooxda uu iskaga tagay kabtankeedii Sergio Ramos. Varane ayaana ah daafaca kaliya ee guuleysta ah oo kooxdooda haatan ku sugan. Real Madrid ayaa haatan u muuqata mid aqbashay guul darrada maadaama Varane uu diiday inuu saxiixo qandaraas cusub. Taasi waxay dhiirigelin u noqon doontaa fursadaha ay United ku heli karto 28 jirka maadaama ganacsigooda xagaagan uu si xooli ah ku socdo. Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu xoojiyo safkiisa daafaca isagoo mudnaanta koobaad u arko lamaano cusub oo khibrad leh misne Harry Maguire la istaaji karo. Varane waa dooqa koobaad ee difaaca dhexe ee Man United suuqa ka baadi goobaysa xagaagan. Ole ayaa xidigan ku doortay khibrada uu leeyahay guusha maadaama uu Varane ka soo muuqday 14 finaal dhamaantoodna oo ku guuleystay taasoo ah tayada Man United ka maqan. Warbixinta ayaa sheegaysa in Madrid ay sii ogaatay inay heli doonto dalab rasmi ah isbuuca soo socda iyadoo ay United doonayso inay soo gabagabayso ganacsigooda sida ugu dhaqsiyaha badan. Xilli ciyaareedka cusub Premier League waxaa ka dhiman wax ka yar bil. Solskjaer ayaa doonaya inuu heesto koox dhameystiran ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub isagoona maanta ciyaartoydiisa u sheegay inay ku soo laabtaan xerada tababarka. United ayaa ku dhameysatay kaalinta labaad xilli ciyaareedkii hore markii labaad tan iyo bixitaankii The Great Fergie. hase yeeshee runtii weli kuma dhawaan inay u babacdhigaan ciwaanka ah ku guuleysiga horyaalka tan iyo Sir Alex Ferguson waana isbedelada Man United laga sugayo xilli ciyaareedka cusub 2021-2022 marka loo eego xawaaraha aan kala go'al lahayn ee kooxaha Manchester City iyo Liverpool sanadihii ugu dambeeyay soo bandhigayeen. United ayaa ku khasban inay sameeyso isbedel dhab ah si ay dib ugu soo celiyaan gacantooda maamulida horyaalka Premier League mar kale. Inaad isku hesho Raphael Varane iyo Harry Maguire maalinta furitaanka xilli ciyaareedka cusub waa mid ka dhigi karta difaaca Man United mid cajiib ah. United weli heshiis rasmi ah lama gaarin Los Blancos, laakiin Varane ayaa u muuqda mid ku sii dhawaanaya gegida Old Trafford. waynu arki doonaa sida ay wax noqdaan. warbixintan waxaa qalinka u qaaday al-ustaad Cabdiraxmaan Cabduqaadir Maankiis waxaa idin soo jeedinaya anigu ah huujiga cadaawe. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.